Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadayaal kusoo dhawaada meel kasta dunida ka joogtaan qodobadeeni falanqeynta qodobadayna maanta barnaamijkeena kusoo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah dowladda dalka Mareykanka oo qorsheynaysa in ay qabsato jamhuuriyadda Somaliland. Qodobka xigeenna soo qaadan doono daawadayaal waxa uu yahay ciidamada dalka Turkiga oo soo gaadhay xeebaha Soomaaliya. maxkamad ku taala dalka Mareykanka oo ganaax lacageed ku xukuntay dowladda Djibouti. qodobada iyo qodobo kale ayaynu kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta daawadayaal kusoo dhawaada falanqeynta maanta. daawada waxaan naga xasuusinaa haddii aad tahay daawada ku cusub channelkeena waxaanu ku leenahay channelka subscribe saar gaar ahaan reer Somaliland oo channelka subscribe saar. haddii aad tahay macmiil soo noqday waxaanu ku leenahay mahadsanid. haddii aynu guda galno daawadayaal falanqeynteena maanta qodobka ugu horeeya dowladda Mareykanka oo qorsheynaysa 2025 in ay aqoonsato Somaliland. dukumenti dheer oo la sheegay in ay diyaariyeen taageerayaal iyo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ayaa ka hor soo jeedinaya haddii uu Donald Trump ku guuleysto doorashada 2025 in ay Washington aqoonsan doonto Somaliland. dukumentigan oo loo bixiyay mashruuca 25 ayaa ka kooban in ka badan 900 oo bog ayaa u qorshaysan in la fuliyo 100 maalmood ee ugu horeeya ee inta uu xafiiska madaxweynaha Mareykanka uu joogo. dukumentiga ayaa waxa uu sheegayaa muhiimadda ay leedahay aqoonsiga dowladda Somaliland looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee Mareykanka iyo Djibouti. joogitaanka saldhigyo military oo ay leeyihiin quwado shisheeye oo ku yaala dalka yar ee Djibouti ayaa noqotay mid ka mid ah arrimaha yar ee sii adkeynaya siyaasadda adag ee juqraafiyadeed ee geeska Afrika. waxa uu Mareykanku ka carooday in wadanka uu kala dhaxeeyo dagaalka siyaasadeed ee Shiinuhu in uu saldhig ku lahaado dalka Djibouti. Mareykanku waxa uu sheegay in uu rabo in uu aqoonsado dalka Somaliland oo uu rabo in aanay cidila wadaagin. saxaafadda CNN ee Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay ogaatay 140 qof oo kamid ah xubnihii la soo shaqeeyay madaxweyne Trump in ay diyaariyeen qorshahan 2025 iyada oo looga gol leeyahay in lagu sameeyo dib u habeyn laanta fulinta. liiska xiriirka la leh Trump iyo mashruuca 2025 waxaa ku jira 240 qof oo kamid ah shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka Mareykanka. tani waa dhab ahaanshiyaha ay dadka qaar u rumaysteen mashruucan 2025 ee uu rabo in uu fuliyo madaxweyne Donald Trump. haddaba mashruucan 2025 oo ah qorshaha madaxweyne Donald Trump 100 maalmood ee ugu soo horeeya ayaa waxaa la sheegay in ay diyaariyeen Heritage Foundation iyo kooxo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. daawadayaal haddii aynu qodobkeena xiga maanta barnaamijkeena u gudubno, dhawaan ayaa ahayd daawadayaal markii ugu dambeysay uu wasiir ka tirsan xukuumadda dalka Turkiga uu yimaado Soomaaliya kaas oo kulan la qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kalana hadlay in sidii ay badda Soomaaliya u keeni lahaayeen ciidamadooda badda. haddaba wiigii hore mar la horgeeyay baarlamaanka Turkiga qorshaha ciidamada loogu qaadayo badda Soomaaliya xeebaha Soomaaliya ayaa haddaba baarlamaanka Turkiga ayaa waxa uu ansixiyay qorshaha. baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay mooshinkii uu dhawaan horgeeyay madaxweyne Erdogan kaas oo ahaa in ciidamo badeed iyo maraakiib dagaal oo uu Turkigu leeyahay la geeyo xeebaha Soomaaliya. waxaana hadda kadib la filayaa in ay ciidamada iyo maraakiibtu soo gaadhaan badda Soomaaliya. dhawaan ayaa ahayd Somaliland ay gaashaanka u daruurtay ciidamada Turkiga ee ku wajahan xeebaha geeska Afrika iyada oo ka digtay in ay u soo dhawaadaan biyaha badda Somaliland. qodobka ugu dambeeya daawadayaal barnaamijkeena maanta, dowladda dalka Djibouti oo lagu ganaaxay lacag dhan 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka. haddaba dowladda Djibouti ayaa lagu xukumay lacag ku dhow 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah kadib dacwad ay shirkadda DP World ay ka gudbisay dalka Djibouti. maxkamadan oo ku taala magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa ku xukuntay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta lacag gaaraysa 194 milyan oo dollarka Mareykanka iyada oo ay lacagta lagu xukumay dowladda dalka Djibouti.
lacagtan ayaa loo xukumay shirkadda DP World ayaa salka ku haysa markii dalka Djibouti uu ka baxay heshiiskii labada geesoodka ahaa ee dhex maray dowladda Djibouti iyo DP World oo ku saabsanaa dekedda Dar oo leh container. daawadayaal barnaamijkeena xigeyntan ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan naga xasuusinahay inaad channelka subscribe saarto daawada haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid.